مسؤولين كترسن maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxay kormeer shaqo ku tageen iskuulka Shariif Qolateyn ee degmada Shirgaani halkaas oo wax lagu baro boqolaal caruur ah oo kamid ah dadka deegaanka maamulaha iskuulka Shariif Qolateyn Ismaan Xaaji oo soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahad Allah Ibrahim Dheere iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta dawladda hoose ee Xamar Marwo Basma Amir Ahmed Chaketi ayaa warbixin ka siiyay xaaladda iskuulka iyo qaabka wanaagsan ee ardayda ay wax ku baraan maadaama iskuulku uu kamid yahay kuwa hoostaga maamulka gobolka Banaadir oo si bilaash ah ardayda wax lagu baro Marwo Basma Amir Ahmed Chaketi ku-xigaha duqa magaalada Muqdisho u qaabilsan arrimaha bulshada iyo wacyigelinta oo goobta ka hadashay ayaa ka codsatay shacabka degmada Shirgaani iyo degmooyinka kale ee u dhow degmadaasi in caruurtooda ay keenaan iskuulka maadaama iskuulkan uu yahay mid si bilaash ah wax lagu baro caruurta ووحي دالك أياتهين مدحدي دالك أياتهين مستقبل كيني مستقبلكم أمد الصوماليات إن أتكد داشين إن وحبر الشدي أتكد داشين أقول لعان وافتين لعان إن هذا النقانين أرضي ذا دربجيف كاميلها تاجن إن لإذين من هوابين إن أتكد داشين وحبر الشدي يدولد نمض السود ويسان وحبر الشدي إذن كوبري وحدين ترى qof kasto wax barto asaga ku faa'iidayo marka waxaan rabnaa inaad ilmaha kalena oo xaafadaha jooga aakeetaan sababtoo ah iskuulkan waa lacag la'aan waxaan ugu talagalnay maamulkeeni in ardaydu wax ku bartaan sababtoo ah shalay hadii iskuulaad badan ah jiro lacag lagu bixiyo annagoo taas ka carareyna ama aan rabno inaan ka jawaabno iskuulaad badan aan rajaynayno wasaaradda waxbarashada in maamulka gobolka Banaadir ku soo wareejiyaan ee noqon doonaan iskuulaadkaas oo dhan lacag la'aan kuwa haddaan gacanta ku hayno kulligoodan ay yihiin lacag la'aan ina ardayda xaafadaha jooga ilmaha yaryarka xaafadaha joogo diriska la tihiin ina keentaan ay wax bartaan ku-xigaha duqa magaalada Muqdisho dhinaca maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Umar Mahad Allah Ibrahim Dheere oo la hadlay maamulka iyo ardayda iskuulka ayaa ka sheekeeyay qiimaha waxbarashadu ay leedahay shayga kaliya ee barwaaqada iyo gobonnimada iyo wax walba inay horseedayo oo in ka saarayo inaad cid aad baridaan oo maskaxdiina aad maashaan waa inaad wax barataan saas ma balanteenu maxay tahay waxbarasho haddii aad wax barataan maxaad ugu abaalgudaysan dalka Soomaaliya aad wax ku barataan weliba lacag la'aanta ah waajibkiina muxuu yahay maxaana saaran waajiba waxaan waajiba in abaal gudana calanka Soomaaliya baluga oo maanta aad harsanaysan ayaa Soomaaliyo dhan kala mideeya waxa loo baahay midkan inuu qalbiga iyo laabta inuu kaga yaalo sababtoo ah kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa ku nafuusay in la helo calan in la helo xornimo in aan noqono gob in aan noqono Soomaali dal ah iyo dad ah dhig badan baa loo qubay oo waliba dhalinyaro iskiina oo kala ah ayaa keentay maanta xornimada aan ku macnaha la noolno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ku yaala in ka badan 20 iskuul oo si bilaash ah wax lagu barto waxaana maamulka gobolka Banaadir uu wadaa qorshe ah in dhammaan lagu soo wareejiyo iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho si bilaash ahna wax lagu baro caruurta Soomaaliyeed ee ku nool 17 degmo ee gobolkan Banaadir